halkan waxaa fadda buula sheekh ee magaalada Gaarisa waxaa ka dhacay arooska Maxamed Cabdi Xamiid Sheekh iyo Najma Yuusuf oo ah lamaane dhagala. Arooskooda ayaa ahaa mid aad u soo jiitay eheladii wiilka iyo gabadha iyo sidoo kale saaxiibo badan. Waxaa la ii sheegay in saaxiibada Maxamed ay uga yimaadeen gobolada kale ee dalka si ay uga qayb galaan arooska Maxamed iyo Najmo. markii guriga loo soo galbiyay Maxamed Cabdi Xamiid ayaa isaga oo qof kale uu ka turjumayo waxa uu iga waramay sida uu dareemayo iyo sida uu ku soo bilowmay asaga iyo Najmo xiriirkooda. Say u aragtaa maanta arooska? I am happy. Today is a happy day. Maanta waa maalin farxad leh. Maxaad oys? Jaceelkan hooyada oo yiri. Ilaa intee ku gaartay iskuulka? Iskuul waan boge. Okay. From 4 boge. Okay. College Nairobi oo ICT baan akhristay. Shahaado ma haystaa. Gaarsan hadda u soo wareegay. hadda shaqaan raadsanayaa. Shahaadooyinkayga waan haystaa. Gabadha guursatay magaceed Najma Yuusuf. goorma isbarteen gabdha walaalahayba iskuul isla dhigan jireen xaafadda imaan jirtay markaasay xaafadda imaan jirtay saaxiibaan noqonay aarko islooli saaxiibaan noqonay okay haddana ina isguursanay noqotay go'aanka aanu iga imaado yiri marka wazaazan u sheegay parentskay u sheegay way ugu raaceen but ana choose gareste ana doortay maxaa ka mid ah wuxuu yiri markii hore wax dhibaato jiro mar laakiin aabaheeda markii hore diiday laakiin markii dambena waa heshiinay waa la isii gabadh. Cabdi Xamiid Sheekh oo ah aabaha dhalay Maxamed dadaal adagna u galay in arooska wiilkiisa uusan ilqadis yeelanin waxa uu warbaahinta istaa la wadaagay dareenkiisa. arooska aad baan ugu faraxsanahay waayo maalinka u horeysay ee uu ii sheegay family ayagana ilmo dhagala qabaan oo ehelkana oo reer Gaarisa oo aan rixim aan nahay dadka reer Gaarisa ehelka ah family kamid oo waliba aabaha gabadha dhalay aan saaxiib ahayn markuu ii sheegay uu yiri family dhagoole sidaanadoo kale aaba oo cid dhagala ilmo dhagala dhaleen ayaan gabar ku soo arkooday gabadhaas aan jeclaaday in la doon rabaa waan ku farxay family-gi baan raadiyay family-gi wuxuu noqday in aan saaxiib nahay oo asagana ilmo dhagala dhalay oo 3 ah maadaama anigana aan 5 dhagala aan hayo ilaahay siiyay oo ilaahay igu nimceeyay asagana ilaahay uu 3 siiyay waxaan u arkay in aan iska xignaba dadka reer Gaaris kale aan iska xigno maxay la dhagoolada qabiil ma laha inta dhashana qabiil ma lahaanayso saas un bay noqonaysaa asagoo u mahad celiyay dhammaan intii ka soo qayb qaadatay kamira dhalinta arooska Maxamed iyo Najmo maadaama nin muctaraf aan ahaa أولاد إلهي سي شنت دجاها لأن لجا ورقبي لأن الله نحن كرحم أها أوضم contribution بأروس كاس ويا شيء خاصة سيجارة وحنا نقوم حد عيرنها يعني كان مضح دك محمد حسن مضح دك ستا FM أروس كا عاود عقاب اللي بحبوك قاتي سر حمل ما يهلمون أو قاتي وأنا نقوم حد عيرنها ما حد جواد dhinaca kalena qaar ka mid ah eheladii arooska ka soo qayb galay ayaa sidoo kale farxadooda nala wadaagay. arooska kii lagu reesto lagu raaxeysto wiil iyo caano lagu noqdo gabar iyo dollar ilaahay isku barakeeyo labada cunug la isku aroosay Maxamed iyo Najmo guurkiina guur khayr gurigiina guri nagi waan leeyahay insha Allah. Maxamed Cabdi Xamiid Sheekh Xasan oo hambali aroos farxad leh oo lagu doo Allah ka dhigo aan u rajaynaa insha Allah. Cabdi Wali Cabdi Maxamed warbaahinta istaa magaalada Gaarisa.